Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa xalay kulan xasaasi ah xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed kula yeeshay saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybna ka ah fulinta howlgalkii looga saaray maamulkii hore ee Cabdicasiis Laftagareen isaga oo ka hadlay arrimaha ammaanka maadaama uu soo dhammaaday howlgalkii. Kulankan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin heer federaal ah sida gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk Soomaaliya, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale kulankan waxaa qayb ka ahaa ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya u qaabilsan ka hortagga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ee rabshadaha wata iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo ururka bulshada bariga Afrika Danjire Ilyas Cali Xasan. Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxaa lagu sheegay in kulankan uu daarnaa xoojinta amniga Baydhabo maadaama uu isbeddel ka dhacay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale saraakiisha iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan uga mahad celiyay nafurnimada ku aadanayd difaaca sharafka iyo qaranimada Soomaaliyeed. Dhanka kale saraakiisha kulankan ka qayb gashay ayaa gudoomiyaha Golaha Shacabka warbixin ka siiyay howlgalkii guuleystay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay khawaarijta kaga safeeyeen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka u ah maamulkaasi. Si kastaba xaaladda Baydhabo ayaa haatan degan kadib markii shalay ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya kuwaasi uu iskugu jiray ciidamada mucaaradka ah ee loo yaqaano badbaadada Koonfur Galbeed oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. La wareegista magaaladan ayaa keentay in si degdeg ah ay isku beddesho xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi oo is casilo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen.